بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كحرن كنالك إنها شعبك آد بايدين سلامي. كلب كان يركع وحن أقول تلقلي إن الأوحن بلي برلمانك صوماليا أخر خسرة يقولها الشعبك اللبضبة لبدو قدومية لدورتي قدومية كحيجين نذا لما أنتود waxaan baleynaynaa waana soo dhaweynaynaa runtii waxaa farxad inoo ah ma aan kaliya hambaliyadu qofkii aad taageersaneyd inuu guuleystay maaha waxay tahay hambaliyadaydu maantay in Soomaaliya ay guuleysatay in baarlamaan uu inoo dhisan yahay gudoomiyihii iyo ku-xigeenadiisii marka rajo weyn oo waxaa inoo muuqata in la dhiso dowladda Soomaaliyeed maadaama dowladdii hore xilligeedii u dhamaaday marka waxaan rajeynayaa dadweynaha Soomaaliyeedna dhammaantood inay garab istaagaan dowladda kaligeed haddii aysan haysanin shacabkeeda ma ay gudan karto waajibaadkeeda dastuuriga ah baarlamaankan waxaan kaloo rabnaa in aan ka rajeynaynaa ama aan ka codsanaynaa indhaha shacabka anigoo codkooda ku hadlaya in ay dhammaystiraan dastuurka qabiya qoraalka ah oo runtii dhibaato fara badan ku haya nidaamka dowladaha Soomaaliya laga dhiso dhammaantood oo waxyaabo badan mugdi uu ku jiro qaabka ay u wada shaqeynayaan xagga awoodaha tusaale ahaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha madaxda maamul goboleedyada dhammaantood in dastuurka Soomaaliya uu kala cadeeyo awoodahooda ay leeyihiin marka taa ayaa waxay ku hagaagi kara dowladda Soomaaliyeed oo nidaam iyo kala dambeyn leh marka taa waa ka codsanaya mid labaad aan rabo inaan baarlamaanka Soomaaliyeed aan ka codsado maanta waxay tahay maanta adinka ayay gacantiina ku jirtaa haddii isbedel la sameynayo iyo haddii dowladdii hore dib loo soo celin naftirkeedaba isbedel ah mar walba waa isbedel marka waxaan rabaa inaan baarlamaanka Soomaaliyeed adinka u hilinaya ummadda Soomaaliyeed burburka iyo dhibaatada iyo dilka ka soo daashay in aad doorataan musharax madaxweyne Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo aan runtii kalsooni badan ku qabo inuu isbedel mug leh ku samayn doono dibadda iyo gudaha dhammaantood saameynna ku yeelan doono taariikhda Soomaaliya waa nin ka dhisan xagga arrimaha bulshada waa nin ka dhisan xagga siyaasadda waa nin ka dhisan xagga dhaqaalaha waa nin ka dhisan xagga diinta arrimahaasoo dhan markaan u fiiriyey waxaan u arkay ama u gartay inuu yahay shakhsiga maantay Soomaaliya badbaadada u samayn lahaa waxaan rajeynayaa marka codkiina baarlamaanka Soomaaliyeed inaad ugu helisaan Bashiir Xaaji Cali Jamaal adinka u helinaya ummadda Soomaaliyeed samata bixinteeda aad baa idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.